حسن مدحوينه حسن شيخ ولي فهمين قطرته iyo miisaanka ay leedahay gogoshan la dhigayo iyo Soomaaliya hogta ay ku socoto sidoo fogta waxaan ka cabsanayaa inay gogoshaanu noqoto maxlal siyaasadeed hadalkaas dhageysa maxlal siyaasadeed noqoto waxaad hore u barateen oo taqaaneen malxiis siyaasadeed oo xildhibaannimada la isu malxiiso tan waxaan maleynaa maxlal iyo malxiis labadaba in isku noqoto maxlal iyo malxiis siyaasadeed noqoto waxay ugu maqaalaa madaxweyne xasan sheekhow inaad imaaraadka u aaday safarkii degdega ahay si ay kaalmo u siiyaan dowladda Itoobiya oo ku tiri dagaalku waan kula galeynaa laba meelood aan ku duqayna maalin heblo laakiin logistic ma haysanay imaaraadka anaga la hadalnay orod u tag adigu magacaada odoo ku hadlis magaca tigeeniyay bedeleen waxayna ku tusay isirka Soomaaliga waa isku mid qaranimada iyo sovereignty Soomaaliya madax banaanida Soomaaliya fil Soomaaliya taala Hargeysa ma taalo Garowe ma taalo Kismaayo ma taalo Baydhabo ma taalo Dhuusamaree ma taalo Jowhar ma taalo qaranimada Soomaaliya Somali sovereignty waxay taalaa fil Soomaaliya haddii fil Soomaaliya gacanta ka baxdo oo la qadar Allah ilaahay ma qadaray shabaab gacanta u gasho Soomaaliya qarannimadeedii iyo madax banaanideedii gacanta ka baxdo inaan Soomaaliya wada difaacano fil Soomaaliya wada difaacano xamar xukuumadda ka jirta la wada difaacdo ayaa isirka Soomaaliga dan ugu jirta hadduu gaarisi joogo iyo hadduu carta joogo iyo hadduu jigjiga joogo iyo meesha rabtaba joogo isirka Soomaaliga wuxuu